waxaynoo bilowday sanadkii cusbaa ee aan wada sugaynay 2025. haddaba waxaan jeclaystay muuqaalka koowaad ee barnaamijkeena inuu noqdo muuqaal aan kaga hadlayno aamusnida. ogsoonow saaxiib sanadii tagtay ee 2024 dhibaato iyo wanaag wixii aad la kulantaba waa ay wada tageen. waxaana kaaga digayaa inaad soo xasuusato hadimooyinkii iyo weliba alhumooyinkii ku soo gaaray sanadkaasi. haddana waxaad ku jirtaa sanad cusub si sanadkaagu si uu noqdo mid waxtar leh misna miro dhala sahay iyo saadba ka dhigo aamusnida. waayo aamusnidu waa saaxiibka dhabta ah ee aan marnaba ku qiyaamayn. dhab ahaantii aamusnidu waxaynu u aragnaa daciifnimo iyo weliba liidasho oo waa sababta aan u dhahno ninka war badan dhaxalka aabbaha ayuu kula qaybsadaa. si taasi waxay ka mid tahay beenaha aan nafteena ku qancinno. sayniskuna wuxuu caddeeyey faa'iidooyin dhowr ah oo ay aamusnidu ku leedahay maskaxdeena iyo weliba jirkeenna. waxaanu ku arki doonaa faa'iidooyinkaasi muuqaalkeena maanta. Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla iyo weliba Leonardo da Vinci oo ah jilbaweynta sayniska iyo weliba farshaxanka waxay ka sameeyeen yihiin dabeecadda aamusnaanta. waxayna caddeeyeenba in gundhiga amaba aasaaska ikhtiraaciyadooda uu ahaa aamusnida iyo weliba la falgelidda ay la falgaleen ruuxdooda iyo dabeecadda. waxaynu aad u naqaanaa majaajilistayaal caan ah xilligeenan sida Mr. Bean, Charlie Chaplin iyo weliba Khaby Lame oo ah majaajilistayaal dadka ka qosliya afkaaraha gudahooda ku jirana dadka u soo bandhiga iyaga oo weliba aamusan. waa sax, jabaq la'aantu waa mid ka mid ah waxyaabaha uunan jeclayn aadanaha. xitaa haddii uu howl hayo waxa uu jecel yahay inuu muuqaal ama ugu yaraan podcast dhageysto. sidaas si la mid ahna wuxuu neceb yahay inuu iska aamuso kolkii uu bulsho ku dhex jiro. taas cagsigeeda ee wuxuu jecel yahay had iyo jeer inuu ka hadlo naftiisa amaba howlaha uu qabto. oo xitaa mararka qaarkood waxaa dhacdo in aadanuhu kolka uu la hadlayo qof kale oo midkoodba midka kale hadalka ka jaro, sababtuna ay tahay inuu qof waliba ka fogaanayo aamusnaanta. waxaa la yiraahdaa haddii aad aragto qof aamusan ka agdhow qofkaasi, waayo waxaa jiro wax uu og yahay oo aadan adigu ogeyn, haba ahaadaan waxaasi inuu yaqaano qiimaha aamusnaanta. dhab ahaantii jiilkeena maanta joogo aad ayuu uga cabsadaa aamusnaanta iyo weliba jabaq la'aanta. haddaba waa maxay sababta aan uga baqno aamusnaanta? maxaana had iyo jeer loo dhiirigeliyaa aamusnida? waa maxay faa'iidooyinka aamusnida? iyo weliba su'aalo kale oo fara badan ayaan uga jawaabi doonaa muuqaalkeena maanta. waa hubaal haddii aad dhammaysato muuqaalkan kama shalayn doonti waqtiga kaa gala daawashadiisa. se inta aanan gudagelin barnaamijkeena waxaan idinka codsanaynaa saaxiibayaal inaad muuqaalkan laag saartaan oo aad gaarsiisaan saaxiibo fara badan. haatana ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. inta aanan gelin ka hadlidda qiimaha aamusnaanta, kolka hore waxaan jeclaan lahaa inaan isla meel dhigno waa maxay sababta aan aamusnaanta amaba jabaq la'aanta loo jeclayn. dad fara badan ayaa kolka ay guriga joogaan daaro TV amaba raadiyo, xitaa iyaga oo aanan daawanayn amaba dhegaysanayn. kaliya waxay rabaan inay weheshadaan amaba ay ku qariyaan cabsida kelinimada. waa macquul saaxiib inaad isweydiinayso waa maxay cabsida kelinimada? si weliba oo inoola dhaho qofnaba ha ku tiirsanaanin noloshaada amaba isku filnaansho buuxa gaar. wax weliba oo dhaco qofnaba ma noolaan karo qof kale la'aantiisa, waayo aadanuhu maaha noolo keligii noolaan karo ee waa noolo u samaysan inuu biyo iyo weliba dad kale la noolaado. awoowayaasheenna si ay u sii jiraan ugana hortagaan duurjoogta soo weeraraysa way isbahaysan jireen oo waxay ahaayeen hal koox oo isku duuban. waad wada taqaanaan sheekadii odagii 4 cunug dhalay ee ka hadlaysay isku duubnida iyo weliba midoobidda. oo 4tiisa cunug mid weliba waxa uu dhiibaa hal ul, deedna waxa uu ku yiri wiilkayga ushaan jabi. canug weliba ushii ayuu jabiyey, deedna 4tii ul ayuu isku xiray, mid weliba oo canugii ka midana waa u dhiibay si uu u jabiyo. laakiin hal cunug oo iyagii ka mida waa uu jabi kari waayey. deedna waxa uu ku yiri mar weliba oo aad kala tagtaan sida ulihii ay jabiseen oo kaleete ayaa mid la idin kala jabinayaa. si mar weliba oo aad isku xirnaataan waxaad noqonaysaan sida ushaan isku xiran oo kaleete oo qofnaba idinka idinma jabi karto. sayniska casriga ahna wuxuu caddeeyey kolkii aan keli noqono maskaxdeena inay soo dayso fariimo sheegaya inaan halis ku dhex jirno. si aan cabsidaas uga baxnana mobil, TV amaba ugu yaraan raadiyo ayaan dhagaysanaa. sidoo kale jabaq la'aanta nafteeda ayaaba cabsi ah, waayo ma naqaano waxay tahay. wax weliba oo aan ka cabsanana waxaan uga cabsanaa waxaasi inaanan aqoonin. tusaale ahaan aadanuhu wuxuu ka baqaa mugdiga. aadanuhu kama baqo mugdiga laftiisa ee wax rasmiga ee uu ka baqayo waa wax uunan aqoonin ee ku dhex jiro mugdigaasi. sidoo kale kolka uu aamuso qof muxaadaro amaba kelimad soo jeedinayay dadkii dhagaysanaya oo dhan way aamusayaan,
waayo waxay isweydiinayaan sababta uu hadalkii u joojiyey. deedna maskaxdooda waxay bilaabaysaa inay is-su'aasho talow cilad miyaa jirta mise arrin cajaa'ib leh ayuu sheegi rabaa hadaljeediyuhu. adigu tijaabi saaxiib oo adiga oo qof la sheekaysanaya hal mar bal aamus oo fiiri oo keliya indhihiisa. deedna weydii waxa uu dareemay qofkaasi. waa hubaal waxa uu ku sheegayaa inuu isweydiiyey su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin talow wax qalad ah miyaan ku hadlay. daawade weligaa ma isweydiisa sababta aad ugu fikirto mashaariic waaweynna aad u qorto kolka aad masqusha ku jirto, amaba kolkii aad salaad u istaagto sababta aad adduun oo dhan u xisaabiso? wax kale maaha ee waa inaad labadaas jeerba ku jirto xaalad aamusnaan ah. maskaxdaaduna waxay kolkaasi bilowdaa inay wax taxliiliso. waxaa la yidhaahdaa mar weliba oo aad aamusan tahay waa mar weliba oo aad wax maqlayso, waayo mar weliba oo aan aamusno waxaynu dhegaysanaa codka ka soo baxaya gudaheena iyo midka bannaanka ka imaanayaba. mar weliba oo aan hadalnana waxaynu hadaaqnaa carunka gudaheena ku jiray iyo wixii aan hore u naqaanay oo wax cusub ma baranno. filosoofkii Giriigga ahaa ee Pythagorasna waatii uu yidhi nacaska waxaa lagu gartaa hadalka, caaqilkana aamusnaanta. haddaba haddii aadan jeclayn in la ogaado nacasnimadaada, wehel ka dhigo saaxiib aamuska oo ceebahaaga iyo weliba carunkaaga ku qari aamusnaanta. sidoo kale qoraaga qora buugga The Art of the War waxa uu leeyahay kuwa yaqaano ma hadlaan, kuwa hadlana ma yaqaanaan. oo qof waliba oo aad aragto inuu leeyahay had iyo jeer aniga waa qof aanan meesha waxba ku haynin ee isaga fogow saaxiib qofkaasi. dhab ahaantii aamusnidu waxay inagu hanqarisaa hal abuur. ee weligaa ma isweydiisa daawade sababta loo dhiirigeliyo inaan wax ku aqrino meel jawi degan ah, amaba inaan maalmaha qaar aadno beeraha iyo weliba xeebaha. waayo hal abuurka iyo weliba maskax tuujinta waxaynu ka heli karnaa goobaha degan ee sawaxan iyo jawaaq la'aanta ah. Albert Einstein waatii uu yidhi kelinimada iyo aamusnaanta nolosha waxay kicisaa maskaxda aadanaha. filosoofyadii, aqoon-yahanadii, abwaanadii iyo weliba hogaamiyaashii dunida soo maray waxay ka sinaayeen aamusnaanta. weliba aad ayay u ammaanayeen, waayo waxay yaqaaneen qiimaha aamusnaanta. adiguna haddii aadan aqoonin qiimaheeda, waxba ma dhaantid dameer malab saaran ama qof haysto qore dabajeex ah oo uu libax ku soo duulay si aanan aqoonin sida loo isticmaalo dabajeexaasi. cilmibaaris uu sameeyey Dr. David Rock oo ah madaxa macadka Neuroleadership ayaa ku sheegay cilmibaarista in aamusnaantu tahay isha hal abuurka. bal suurayso saaxiib adigoo joogo goob xeeb ah, deedna qalin iyo buug lagu dhiibay. waa hubaal waxaad qori ka lahayd sheekooyin taabta ruuxda aadanaha iyo cajaa'ibta ku duugan dunida kugu qarsoon, weliba adiga oo aamusan. sidoo kale waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay aamusnidu inaynu diri karno jawaab adag misana awood badan innaga oo weliba aamusan. waxaa la yidhaahdaa aamusnaanta kolka loo isticmaalo sida saxda ah waa hub awood badan. mararka qaarna waxaa dhacday inay nagu filnaa waayaan erayo si aan u soo gudbino dareemaha gudaheena ka guuxayo. sidaa darteedna waxaa aad loogu taliyaa kolkaasi inaan aamusnaanta ku sii dadaalno. sida aan horey u soo sheegnaba, mararka qaar inaad aamusto ayaa ka saameyn badan inaad hadasho, waayo aamusnidu waxay dadka kaa soo horjeedo ku abuurtaa maskaxdooda su'aalo fara badan. canuga yar xitaa intii aad dhihi lahayd ha samaynin, mararka qaarkood waxaa habboon inaad aamusto oo aad indhaha ka fiiriso. deedna howshii waa uu joojinayaa, wuxuuna dareemayaa inaad xaalad kale dhex gashay. si aan u fahno qiimaha aamusnaanta, waxaa tusaale inoogu filan kolkii heesta calanka la qaadayo amaba la baruurdiiqayo, dadka oo dhan way aamusaan, waayo waxay galaan kolkaasi xaalad aynan ereyadu cabiri karin. dalka Indonesia-na, gaar ahaan jasiiradda Bali, waxaa jirta maalin loo yaqaano Nebi, waana 24 saac oo xiriir ah oo ay jasiiradda dhan noqonayso jabaq la'aan iyo weliba duni aamusan. maalintaasi jasiiradda oo dhan waxaa lagu soo rogaa bandow, mana jiraan wax duulimaad ah, gaadiid la isticmaalayo amaba xitaa ileys la daarayo. dadka deegaanka oo dhanna waxay si buuxda ula falgalaan aamusnaanta. ujeedkuna waxaa lagu sheegaa inay dhaqayaan ruuxdooda, dibna ay isugu xirayaan dabeecadda, taas oo astaan u ah bilow cusub. maalintani Nebi ma aha keliya maalinta aamusnaanta ee sidoo kale waa maalin la soo bandhigo wada noolaanshiyaha gudaha iyo weliba caalamka ku xeeran dadka ku nool jasiiradda Bali ee dalka Indonesia. sidoo kale aamusnidu waxay ka qayb qaadataa badqabka maskaxda aadanaha. cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 2 daqiiqo oo qofka aamuso ay ka qiimo badan tahay heesaha loo yaqaano dejiyaasha maskaxda. sidoo kale isla cilmibaaristan waxay caddeysay in aamusnaantu ka qayb noqoto kobaca koriinshaha maskaxda iyo weliba siyaadinta xusuusta qofka, oo mar weliba aad ka fogaato meel buuq badan waa mar weliba uu garaadkaagu bilaabo dib u soo kabasho iyo weliba isjaajarayn.
se nasiib xumo waxaynu dhex dabaalanaa duni codad badan oo waxaynugu hareeraysan motoorar mashiino iyo weliba gawaari guux dheereeya leh waana sababta mararka qaar ay qasab u tahay inaan aadno gobollada ama baadiyaha si aan ruux ahaan iyo jir ahaanba isugu soo bedelno diinteena suubanna waynu naqaanaa sida ay u ammaanta aamusnaanta oo nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxa uu xadiis ku yiri man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alla subxaanahu wa tacaala rumaysan iyo maalinta qiyaamo ha yiraahdo arrin khayr ku sugan amaba ha iska aamuso caalimkii weynaa ee Sufyaan as-Sawrina waxa uu yiri cibaadada ugu horeysa ee qofka la yimaado waa aamusnaanta kadibna raadinta cilmiga kadibna ku camal falkiisa kadibna xifdintiisa kadibna faafintiisa aamusnaantu waa astaan lagu yaqaan dabeecad wanaaga iyo weliba dhowrsanaan nafeedka aamusnidu waa mid ka mid ah waxyaabaha inoo horseedi karaa inaynu galno jannada kana fogaano naarta oo waad wada taqaanaa xadiiska uu nabiga sallallahu calayhi wasallam Mucaad kula dardaarmay ee uu ku yiri kan iska ilaali weliba isaga oo carabkiisa haayo haddaba daawadahayga qaaliga ahow qof weliba kolkii aad la sheekaysanayso aamus oo dhageyso waa hubaal dadka oo dhan way ku jeclaan doonaan kaliyana ka hadal waxa aad aqoonta u leedahay oo ha dhabjinin deegaanka kugu hareeraysan xitaa adiga oo qof la hadlayo haddii uu qofkii aad la hadlayso uu moobil isticmaalo bilaawo kaliya ka aamus qofkaasi waxa hubaal inuu joojinayo isticmaalka moobilka dhagihiisuna ay raboon doonaan cilmiga ka duuxayay inay maqlaan aamusnidu waa sidii muraayad oo kale kol weliba oo aad aamustana waxaad arkaysaa fikradaha iyo weliba dareemaha gudahaaga ka guuxayo taasina waxay kuu fududeynaysaa inaad in badan ka barato adduunka gudahaaga ka jiro dad badan ayaa mooda in aamusnidu tahay marnaansho se waa cagsigeeda oo aamusnidu waa awood kol weliba oo aad aamusan tahayna waxaad curinaysaa fikrado waaweyn waxaana abuuraysaa deganaansho iyo weliba nabad waxaa la yiraahdaa aamusnidu ma hadda ciifnimo ee waa xigmad ee haddii aad rabto inaad noqoto garaad badan misana faylasuuf ah ku dadaal aamuska hadalkuna waa wax sheega qofka dhabta aynu nahay waana sababta loo yiraahdo qofka aad rabto inaad ogaato darajada aqoontiisa kaliya la hadal si aanan loo ogaanin darajada aqoontaadana ku dadaal saaxiib aamusnaanta mar weliba oo aad aamustaa waa mar weliba oo aad la hadlayso dunida ka alkuman gudahaaga ugu dambayna haddii aad halkaan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ay noo tahay saaxiibayaal inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim